kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu waaweynaa xiisadda bariga dhexe Iiraan oo dejisay qorshe aan caadi ahayn oo ay kaga hortagayso weeraro mar kale kaga yimaada Mareykanka. Maxaa laga ogyahay marinbiyoodka Hormuz iyo maraakiibta halkaasi Donald Trump uu keenay? Wararkii ugu waaweynaa xiisadda ayaan soo qaadan doonaa iyo xaaladii ugu dambeysay ee godoominta. Faahfaahinno dheeraad oo la helayo oo aan kuu soo gudbin doono isla markaana tabinteena aad kaga bogan doontaan. kuwa iyo kuwa kale xiiso badan oo wararkii ugu waaweynaa uguna dambeeyay xiisadda bariga dhexe ah barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. ku soo dhawaada waa maalmo Salasa 14 bisha Abriil sanadka 2026. muuqaalka sii share gareeya saaxiibayaal ayna ku dhiirigeliya mahadsanidin. aanu ku bilownay ciidamada dalkaasi Iiraan ayaa waxay juhdi ballaaran iyagu ku bixinayaan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen weerar mar kale kaga yimaada dowladda Mareykanka. ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan ayaa ku dhawaaqay inay dejiyeen qorshe aan caadi ahayn ay kaga hortagayaan weerar mar kale ay kala kulmaan dowladda Mareykanka. haddaba wakaalada wararka ee Tasniim ayaa baahinaysa in saraakiisha ugu sarreysa dalkaasi heegan la geliyay, waxaana warkan ku dhawaaqay sarreeye guuto Xuseen Muhibi isagoo sheegay sarkaalkan ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka dalkaasi in ciidamadu ay u diyaar garoobeen wado kasta oo looga hortagayo weerar kaga yimaada Israa'iil iyo Mareykanka, isagoo sheegay inay waqti xaadirkan ay markaa awoodaan qabuuro inay kaga dhigaan gudaha dalkaasi Iiraan. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan afayeenkan uu isagu tilmaamay ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iiraan in waxa ugu weyn haatan ay sameynayaan ay tahay cid kastoo soo weerarta in ay si adag uga jawaabaan. waxaanu diyaarinay ayuu yidhi difaacyo lakabyo ah oo aanu rabno unugyada ciidamada dhulka inay kaga hortagaan cid kasta oo ku soo duusha. weliba waxaanu rabnaa ayuu yidhi in aanu u bedelno cid kasta oo ku soo duusha qubuuro inaan uga dhigno gudaha dalka Iiraan. waxaana uu soo xusuusiyey taariikhiyan gumaystayaashii ku soo duulay dalkaasi Iiraan iyo sida mar walba iyagu ay ugu baabi'i jireen. haddaba wasaaradda difaaca ee dalkaasi Iiraan ayaa sidoo kale xaqiijisay in kayd istaraatiijiya oo ku aadan hubka iyo weliba xitaa tirada ciidanka qalabka sida inay haystaan, islamarkaana waxay sheegeen diyaarado aan duuliyo lahayn, gantaalo iyo weliba hub ku filan in dalkoodu ay haystaan maalmaha soo aadana la arki karo. haddaba saraakiisha ugu sarreysa lagu daray gudoomiyaha guddiga amniga qaranka ee baarlamanka Ibraahim Cazizi intuba waxay tilmaameen hadallada Donald Trump iyo weliba qorshe cusub oo lagu soo gabanayo marinbiyoodka Hormuz iyo weerar dhanka lugta aba inay diyaar u yihiin dhulkooda inay difaacdaan wax kastoo ka yimaada Mareykankana si adag jilbaha ay dhulka ugu dhigi doonaan. haddaba maxaa ka soo kordhaya wararkii ugu dambeeyay ee marinbiyoodka Hormuz? marka la eego marinbiyoodka Hormuz waxaa lagu tilmaamayaa halkaasi maraakiibtii halkaa maraysay in ay gibi ahaanba hakad ku jiraan. wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxay sheegtay inay jiraan waqti xaadirkan maraakiib ka imanaysa dalkaasi Shiinaha ee ku soo socda marinbiyoodka Hormuz. weliba waxaa la tilmaamayaa inay jiri doonaan maraakiib kale oo dagaalka u suurtagal ay tahay dowladda waddankaasi Shiinaha in ay markaasi u soo diraan. waxaa dhici karta in dowladda waddankaasi Shiinaha sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in Shiinaha maraakiibtiisa loo soo diri doono iyagoo waraaqaha wata Mareykanka dhihi doonaan maraakiibtaas annaga ayaa wadana, sidaas daraadeed annaga ayaan la hor istaagin. talaabadan hadday dhacdo ayaa lagu tilmaamaya inay tahay fashil weyn oo xitaa Mareykanka, sababtoo ah dowladda waddankaasi Shiinaha waa adag tahay in la hor istaago. Mareykanka muxuu ugu fashilmi doonaa talaabadan? khubaradu waxay tilmaamayaan in marinbiyoodka Hormuz uu yahay marinbiyood gacanta ay ku hayso dowladda waddankaasi Iiraan, taasoo siinaysa awood juqraafi oo aan caadi ahayn. 3 hadaf ayuu Mareykanka u soo galay ay leeyihiin khubaradu. fashilka koowaad waxaa la tilmaamay inuu ahaa dagaalkii 40 cisho oo dowladda Iiraan ay ku guuleysatay inay jilbaha u laabto Mareykanka, isla markaana dalkaasi cagihiisa uu ku sii taagnaado. weliba dagaalyahano iyo weliba calooshoodu shaqaystayaal lagu beeray dalkaasi oo u ahaa basaasiin Mareykanka iyo weliba Israa'iil in si adag loola dagaalamay, qaarkoodna hadda garsoorka dalkaasi Iiraan ay hor taagan yihiin. sheekada kale ee xiisaha leh waxay tahay fashil inuu ka waayo dowladda Iiraan in tanaasul ay sameeyaan. waayo fashilka labaad ee Mareykanka u wajahay ayaa lagu tilmaamay markii la tagay dalka Pakistan in la doonayay in Iiraan lagu cadaadiyo la yiraahdo qorshe badan ma haysatid, samee tanaasul, samarkaana waad fashilmaysaa. laakiin Iiraan waxay tiri diyaar uma nihin annagu in aan tanaasul sameeyo,
waxaana ahayd fashil labaad. Fashilka saddexaad waxay ahayd kadib markii uu ku dhawaaqay Trump inuu xoog ku furi doono marinbiyoodka Hormuz. Geed dheer iyo geed gaaban ayuuna u fuulay sidii xitaa Iiraaniyiintu ula hadli lahaa u dhihi lahaa walaalayaalow meesha noo fura. Laakiin haddana Tehraan weydiiday warkaas inay dhegeysto. Saddexdaasi fashil oo Mareykanka ayaa guul u ahaa dowladda waddankaasi Iiraan. Washington fashilkaasi kadib waxay raadisay xal kale, waxaana ay ka dhigtay jawaabta cunaqabatayn dhaqaale sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Mareykanka waxaa la tilmaamayaa tallaabadan inay ku noqotay tallaabo uu ku ictiraafayo in uu awoodi waayo xoog dagaalka inuu ugu guuleysto, maadaama la tilmaamay in waqti xaadirkan uu waayey awooddii u baahnayd in dalkaasi Iiraan lagu burburiyo oo weliba NATO xitaa uu tagay oo ku soo fashilmay. Halkan markay Iiraan ka guuleysatay kadib, Mareykanka wuxuu awoodi waayey sidoo kale in marinbiyoodkaasi markii uu xitaa furi waayey in xal uu helo oo beddelkiisa isagu la yimaado. Mareykanka maadaama uu jebin waayey baa la tilmaamayaa Iiraan cunaqabatayntan dhaqaale sidee bay u saameyn doontaa marka la eego dowladda waddankaasi Iiraan. Faahfaahinadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan dowladda Iiraan inay u diyaar garowday qorshaha noocan oo kale ah. Dowladda 47 sano ee lasoo dhaafay ku dhex jirtay cunaqabatayn iyo weliba dhibaatooyin. Waxaa leeyahay mar walba cunaqabatayn ay la kulanto waxay sameyn jirtay qorshe bedel ah iyo weliba si ay kula qabsanayso cunaqabataynta marxaladaasina uga gudbayso. Mareykanka markii uu isagu tallaabadan ku soo rogay dowladda waddankaasi Iiraan, waxaa durba u caddaatay amaba lama filaan ku noqotayba in dowladda Iiraan qorshe kastaba beddelkeedii ay leedahay oo ay doonayso sidaas inay kula qabsato. Waa mid ka mid ah khasaarooyinkii ugu waaweynaa ee gaaraya dowladda Iiraan, iyadoo dhaqaale fara badan la tilmaamayo maalintii inuu markaasi saameyn ku yeelanayo. Laakiin ogsoonow, go'aankan sidoo kale ma saameynayo Iiraan keliya, laakiin wuxuu saameynayaa dowlado badan. Dhibaatadu waxay gaaraysaa dowladda waddanka Shiinaha, taasoo la tilmaamayo in Mareykanka ay adag tahay in uu u diido markaa marinadiisa in halkaasi ama marinbiyoodka Hormuz in maraakiibta Shiinaha ay maraan. Shiinaha beddelka Iiraan cid kale ama Mareykanka kama qaadan doono, sababtoo ah Shiinaha kuma bedelanayo shidaalka uu isagu qaadanayo lacagta dollarka ama dollar kuma bixinayo. Lacagta uu ku iibsanayo waa lacagta yuwaanta Shiinaha uu leeyahay. Sidoo kale waa uu diiday inuu ka qayb noqdo nidaamka Swiftiga ee Mareykanka uu isagu maamulo. Labada caqabadoodba waxay keenaysaa dowladda Mareykanka in suuqeedu sidaas Shiinaha uu uga qaadan waayo. Beddelkiisa halkee bay ka qaadanaysaa? Waxaa lagu qasbayaa marka in si kastaba Shiinaha maraakiibtiisa halkaasi loo daayo oo dowladda waddankaasi Mareykanka aysan isku taaban. Sidoo kale wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan go'aanka Mareykanka inuusan fuli karin. Haddii uu fulana ay isku dhici doonaan dowladda waddankaasi Shiinaha. Waqti xaadirkan dowladda Shiinaha waxay leedahay maraakiibteeda aniga halkaa baan geenayaa, waxaan ka soo qaadanaya shidaalkaygu hala ii markaa daayo. Laakiin xitaa haddii ay markaa Iiraaniyiintu ay markaa ku guuleystaan tallaabadaasi waxay noqon doontaa guul weyn, maxaa yeelay halkii naftadoodu iyo weliba markaa shidaalkooda ugu badnaa ee laga qaadan jiray waa dowladda waddanka Shiinaha, warshadihiisa ayaana markaasi qaadan jiray. Laakiin dowladda waddankaasi Iiraan waxay degtay qorshe cusub iyo weliba markaa badda qaswiin inay isticmaasho, halkaasina xeebaheedu iyagu ay kaga faa'iideysan doonaan. Dowladda waddankaasi Iiraan ayaa dharbaaxo kale doonaysa markana inay ku dhufato dowladda waddankaasi Mareykanka. Mareykanka ayaa u soo diray marinbiyoodka Hormuz wixii maraakiib ah ilaa 15, waxaana ka mid ah USS Bainbridge, waxaa ka mid ah USS Thomas Hodder, waxaa ka mid ah USS Frank Peterson, waxaa ka mid ah USS Delbert Black, waxaa ka mid ah USS John Finn, waxaa ka mid ah Mitchell iyo weliba kuwo kale oo marka USS Tripoli ku jirto. Haddaba dowladda waddankaasi Iiraan waxay iyadu juhdi ku bixinaysaa sidii iyagu markaa ay uga digan rogan lahayd caqabad kasta oo dowladda waddankaasi Mareykanka ay marinbiyoodkan ay ku soo kordhiso. Faahfaahinadii ugu dambeeyay waxay ku waramayaan xaaladdu inay aad iyo aad ugu adag tahay marka laga hadlayo Mareykanka, sababtoo ah wajigaba xoogan ayuu kala kulmayaa ayaa la leeyahay. Waqti dowladda waddankaasi Lubnaan iyadoo u diyaar garoobayso wada hadal inay la gasho Israel weli waxay sii wadaa duqeymaha iyo weliba dagaalada qaraar ay markaas iyadu kula jirto dagaalyahanada xisbiga. Saacadihii ugu dambeeyay ciidamada Israa'iiliyiintu waxaa laga dilay askar fara badan koonfurta dalka Lubnaan sida faahfaahin la tilmaamayo. Waxaa leeyahay in ka badan 34 askari ayay sheegteen ilaa 174 askari, laakiin wararkii ugu dambeeyay waxaa leeyahay
waxaa sii kordhaya tirada askarta kaga dhimanaysa halkaasi. Faahfaahinadii ugu dambeeyna waxay leeyihiin khasaare baan ayaa gaaraya oo dhanka Lubnaan iyagu lafsadoodu askar fara badan ayaa laga dilay marka la eego dagaalyahanada xisbiga. Faahfaahinadu waa iska kooban yihiin sababtoo ah dagaalo qaraar markay soconayaan way adag tahay. Ciidamada Israa'iiliyiintu waxay sheegayaan tan iyo Khamiistii in ka badan 154 askari oo saraakiil ay ku jiraan in lagaga dhaawacay halka. Laakiin tirada rasmiga ilaa hadda sidoo kale lama hayo. Dhimashada ayaa ka badan, dhaawacuna marka waa ka badan yahay sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Xukuumadda hadda joogta ee marka Beirut fadhigeedu yahay ee fadhiidka lagu tilmaamo ayaa waxa leeyahay waxay iyadu doonaysaa inay jilbaha qabsato Netanyahu tiraahdo bal waxa doonaan ku siinaynaa Xisbullah hubka waan ka dhigaynaa bal jooji marka. Laakiin nooda kursigan ku sii fadhino. Ghassan Salama ninka la yiraahdo oo dhaqanka u qaabilsan xukuumadda Beirut joogta ee aad uga soo horjeeda Xisbullah ayaa la tilmaamaya inay diyaar u yihiin in hadallo toos ay la galaan. waxaan rabnaa ay yiraahdeen in dagaalka la joojiyo sidoo kale dawladana hubka marka lagu soo wareejiyo. Xisbullah laakiin shalay toro waa hadasho waxay tiri ninkii baxayo Israa'iil isku dhiibaya ha isku dhiibo, ninka xoog noogu yimaada anaguna waa arkeena. ciidamada militariga ay rabaan inay adeegsadaan marka la eego dawladda, laakiin ciidamada militariga waxaan ognahay dhanka Lubnaan inuu yahay military isku marka la isku keenay oo qabiilo ah waayo ama madaahiba marka Shiicada, Sunniyiinta iyo Masiixiga marka 1 milyan oo kamid ah waxa la tilmaamay inay ka soo jeedaan dagaalyahanada Xisbullah dadkoodu ama Shiicadu yihiin, taasoo keenaysa marka dagaal ahli ah oo aad looga baqayo dalka Lubnaan, taasoo maslaxad u Israa'iil sababtoo ah dagaal ahli oo ka dhacay sanadii 1978 iyo wali waqtiyadaas ayaa jiray, taasoo aad uga faa'iideen marka laga hadlayo Israa'iil oo waqtigaasi timid magaalada Beirut gaar ahaan sanadkii 1982 waana waqtigii la aasaasay Xisbullah. barnaamijkeena subaxnimo wanaga inta insha Allah warar kale iyo dokumentari xiiso badan halkan baad ka heli doontaa. si share garee daawade mahadsanid.